galab wanaagsan waxaan ku sugannahay xarunta degmada Baabili ee Dhadhamane runtii qof walba oo ganacsiga heer ka gaarayo waxa uu soo maraa jaranjarooyin kala duwan waxaan ka hadlayo waa Axmed Kaafi Xuseen Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarta isla markaan Ilaahay habidu siiyay inuu ka mid noqdo dhalinyarada ganacsatada ah balse aan sheekadiisa u ogaano waxaan rabaa bal intaan ayna gaarin habka uu ka soo bilaabay nidaamka uu soo bilaabay ganacsigiisa inaad ila socotaan assalaamu calaykum salaam يورن افتح ما دقه حاولا يورن في عنا سموانيد ادب في عنا magaalada kolle waa magaalada laba tog bay u dhaxaysa tog liyaado iyo daaqada dad badan oo xagga hoose ka soo guura karanta soo doonto kale meelaha gaarkan bay soo degaan markay ku yimaadaan maadaama magaalada bari hore sano kale makiinadan jirin ayaan aniguna inaan de masruufkayga iyo quto daruuriga ka raasad darteed ayaa ana makiinad soo saaray makiinadaas aan shaqeynaya marka walaal waxaan weydiiyay Axmed Kaafi Xasan Yuusuf Axmed Kaafi Xasan Yuusuf waa wiil yar oo dhalinyaro ah oo inta badan karti leh sida darteed marka wuxuu sameyn jiray anigoo dharka toleeya ayaa dadka dharka ay keensan jireen oo dharkan u tol jiray alla Axmed deeqo wadan ku weydiinay adigoo dharka sugayo oo ina dharka lagu keeno sugaysa koobaha dal lagu keeno lagu yiraahdo bal koobaha noo tol bal maxaad sameyn lahayd adigu la koobaha ma toleyso makiinadan koobaha ma toleyso marka saasaan anigu marka dambe dhalinyaradan yar firfiriyay waxaan ogaaday kan Axmed Kaafiga yar oo isaguna marka wiil yar oo dhalinyaro ah oo iskoolkan dhigtay niskore ama niska dambe marmar ku dhac jirtay niska dambe iskoolka dhigta niska horena wax yar shaqaysan jiray ayaan marka dambe soo yeeday waxaan kiri war waxa sameeysa xabba gundhisay iyo xabad aduna soo iibso meesha aan makiinada fadhiisano maadaama meel kale aan dharka lagu toleyn aan jirin xagayga soo fadhiiso dadka aniga muuday in dharka toleeyo oo ii keena adiguna aanan ku tilmaamo ninkan tolo aan ma toleeyo koobahe ninkan tolo aan raado darteed ma garanaysa ayaan ninkaas yar ku waaniyay wiga qaatay marka talada Axmed Kaafi Xasan Yuusuf waa wiil dhalinyaro isla markaana ku nool xarunta degmada Baabili ee Dhadhamane ee gobolka Faafan haddaba muddo yar gudaheeda ayuu natiijo fiican ka gaaray ganacsiga Axmed wuxuu ganacsiga ka bilaabay muddo 5 sano ka hor kaasoo ku bilaabay caseeyaha ama turista kabaha horta yatiim baan nahay oo walaashayda horta magaalada keentay oo annagoo 5 baan nahay 2 gabdhood iyo 3 wiil baan nahay wiilkuna beeru abula jooga oo abuna xaaska lagu guursaday bas isagoo xaga ambu walaashayna baan keentay walaashayna keentay horta inta badan qadaa igu dhiban jiray oo waxaan xasuustaa 2 sano ka hor oo 50 riyaal wiil iyo qaday in badan waan weydiisanay oo ku qadin jiray markaasaan say 50 riyaal weysiiyay aku qadiye markaasaan sidii maanta hadaan ku qadiyo ma tukalan birina goojin markaasaan sidii maanta ku qadiyo horta qadiyo laan sidayo horta taasadan aan ku iibiyay 5 riyaal iyo burushkan oo 10 riyaal ah iyo gundhiska isaga bidix baan isaga marka dambe waan aan shaqeynay ayaan maalintaas aan qadalaan olay anoo gundhisnaysan ayaan shaqeynay maalintii ku xigta 200 iyo meelaha 250 ma shaqeystay maalinta ku xigtaan si fiican u qadiyay ويقول معاناتي سان إسكروودي أيودي بتاع ور يرى nin ka fiican baa tahay gudis kana aan ku daro gudis intuu siiyay oo isaguna halkaas makiinad buu ku tolay dharka meel halka hoose oo seylada oo gudis buu siiyay ku shaqee war khayr la ku siintan ku yidi aan isgarab way saygu macaanati oo ku shaqeynay oo kadana aan ugu dad weydiisan oo ka qadeynayo oo shaqeynayo ayaan 2,000 iyo marka 2,700 joogay oo ana adana ku qadeynayo oo adana kooba kiibsanay oo kolka koobaysan oo maadaama yitiimnaay oo hooyalaan horta way dhibanta inta badan iyagu macaanaatay oo bas 2,000 iyo meelaasan ka dhigay markaasaan shuraabatan aan harar tagay oo seebiye saan isgarab wadi iyagu macaanaatay oo isgarab wadi taasad yar baan ku ruun jiray lacagta maalintii 30 riyaal 50 riyaal oo ku sabra maalintan ama 5 riyaal helo aan ku samra
xabad buskudan ka iibsada maalinta ama 200 riyaal ka iibsada waan ka qadiya oo 50 riyaal waan ka dhiga dukaan xasan siraajal laaw oo hooyadeedii Allah u naxariisay iyo hooyadiis waa walaalo weyn isagan dukaan xaga koray kala taasada tan oo kale ahayd waan ku ridaa lacagta saan aan ku ridayo oo shaqaalo oo dhan aan u baalashayo oo intaan u shaqeynayo ayaan muddo hal sano iyo bar markaan gaaray oo ciidana ka iibsanayo oo kayni yaray ku xigeen aan ka iibinayo oo walaashay ama aan siinayo lacag ama afurk ama oo cashanayaan saan isgora wadayo aan baalashayo ayaan muddo hal sano iyo bar markaan gaaray ayaan taasadii furay 25 kun bay ka furnaatay 25 kun iyo 29 riyaal baan ka fulay markaasaan isaga u dhiibay oo hoobal haji imika taasaduna ma deeqaysay lacagtuna way farabadan tahay waa lacagtii hore ooyaan axmed kaafi xasan yuusuf ayaa sidoo kale sheegay in marxaladii kala duwanaa uu soo maray uu haatan ku dhigtay dukaan kaasoon isku wada dukaanka iyo weliba sidoo kale goobtuu shaqada ka bilaabay baalashaynta kabaha markaasuu yidhi horta lacagta xagaad ku ruursataa buu yidhi sheekhadan horta lacagtan dukaankan waan ag dhigaa oo taasadna ku ridiyaa markay sheekhadankaas waa kuwa markaa waa madax xabsiyeedka beeraha weeyaan imika isagaa yidhi mustaqaan ku saaro oo banki aad ku ridatid markaad 2 kun shaqaysaba toddobaadkiiba dukaanka maadaama tuugno fara badan ay joogaan ayuu igu yidhi maadaama tuugno fara badan markay jiruun aan bankiga ku shubo aan liisan aan ku saaro ayuu igu yidhi markaasaan israacnay gudoomiyaha joogaa xafiiska isagaa igu geeyey oo masaaqadii igu saaray masaaqadii igu dhammaystiray markaa shaabadii igu dhuftay markaasaan maalintii ku xigta aan tagay bankiga aan furtay bunkanki maan soo furtay wiilkii baan u keenay war sidana bankigan ku shubana markaasuu isiigunaysiiyo meelaha 32 ku weyn markaas oo bankiga ku shubay muddo hal sano iyo bar weyn oo saa u ku shubo marka 2 kun shaqeeyo isaga aan taasad ku isaga u dhiibo taasad maana ku ridin jirin isaga u dhiiba marka 2 kun ka dhawaan qaada bankigan ku shuba saan ku wado muddo hal sano iyo meelaha 8 bilood oo sii wado muddo 2 sano iyo bar ayaan bankiga ku shubi jiray bankiisaan ku shubo 2 sano iyo markay gaadhay ayay 55 kun noqotay markaad ku soo bilowday gundiskii waxaan shurbaado ku xisay maxaad kula ku xisay markaan shurbaado sarta kobaha hoostan ka bedela kobaha hoostan ka bedela nigisiya jaabuniyaasha waas garab wada arto anoo socda qabad nooc maad kala kulantay shaqada markaad bilaabaysay wallahi inta badan uu imudi jiray horta ku dhisko maalin halka ay galay horta halka ay baahan jirtaa waan ku samraa horta waan ku sabri jirin horta dhibaato wal la qabsantahay oo shaqa haydan madow iyo kama seel markii la isku maasheynay dadka marka u marinaysid maxaad kala kulantay wallahi wax badan way dhibaato weeyaan oo dadku way nacay jirin inta dhalinyaradu oo maxaa ku leeyahay ay nacay jirtay inta badan dhalinyaradu ila yaab jirin oo shaqa sharaf leh horta baan ku dhigi jiray nugna saan aan ku waday ayaan 55 kun markay gaadhay ayaan dukaan aad furatay baan isii horta wiil xasan farax yaado adeerkay khayr Allah ku siiyay saguna dukaan ku furado saguna caqabad weyn buu ku gargaari lahayd saguna tirfaa ma ka soo bixi lahaa haddana waa si weynaan saguna meel baad fadhiisani socodkana ku daariyay markaasaan dukaan ku furay video saguna oo markii hore baarashka waa la wareegi jiray inta badan wallahi imsaad gaarsiyo 55 adeer maraysan ku dhigi jiray galabta inta badan isagaan u dirsadaa ama biyo dirsada waa ay keenaa lacagta uu siiya inta badan isagu maal jooga xasan farax intuu jiiday magaalada khayr Allah siiya isaguna dawladdu ku shaqayn jirin inta badan isagu imika waa uu jooga gaafi ma sha Allah Allah ku barakeeyo dukaanka fiican weeyaan herbal ku gaadhay maxaad leedahay dhalinyarta ama waxbaratay ama joogto maxay ka leedahay wallahi dhalinyaradu inay igu daydaan rabaan maadaama imika dukaan ama aan iyo ay arkayaan inay ku daytaan yaa raba
ay ugu tagtaan ayaa rabaa horta ma hadda ilaahay baa iska leh dukaanka markaan saan u dhigo horta muna sixir bars jirin dukaanka waxaan ku furay 40,000 iyo manfishkiisii kolligaba waxa dhan 40,000 furtay u ii macaanaday horta dukaanka markaan soo furay shaqaa jirtay sixir bararkii 10,000 alaab badan buu isoo yimid saan u shaqaynay saan u qayay warkaasaan ku khayr la deer laawsiyo isaguna 5,000 buu amaahin jiray 5,000 buu dhiibi jiray kana ku shaqayso markaas safar tagaysid oo markaas safar ka tagaysid markaas shaqaydii isoo celiyo haddana aan kugu daro ayuu dhigi jiray isaguna khayr laawsiyo